السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلام إدلانتي بميل كستو جوجتان بدنا كسر هذا يوتيوب channel كلا جانقات أنتوا عن هذا الدون دبتين كايلاد قبيلته أنت أين نبدأ قلنا دبتة عائلات قبيلته حيث لجين قبيل يا قبيل وأنا تقاب ترسجها وياشها تاسنوي بنانتها وحتى دين الإسلام قاينا فرسها لكن qabyaaladdu waa in qof qabiilkiisa uu ku taageero dulmiga kagana hormariyo dadka kale iyagoo aan xaq u lahayn. taasina waa xaaraan sababtoo ah diinta islaamku ma qabto in qof kaloo islaam uu walaalkii u dhibaateeyo. rasuulka waxaa la weydiiyey sallallahu calayhi wasallam, rasuul allah waa maxay qabyaalad? rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waa in aad beeshaada ku taageerto dulmi. qabyaaladdu waa cudur meesha ay soo gashaan way burburisaa. bulsho kasta oo ka fogaata qabyaaladda way horumartaa. qabyaaladdu waxay leedahay oo kale dhibaatooyin aad u fara badan waana hal muuqaal lagu soo koobi karin. insha allah waxaan ka samayn doonaa muuqaallo fara badan sababtoo ah qabyaaladdu waa waxa halkaa ina keenay. haddaynu ka Soomaali ahaan sida inoo gashay oo ogtihiin qof kasta oo Soomaali u garanaya ama filaya qabyaaladda. dhibaatooyinka ay leedahay qabyaaladdu waxaa ka mid ah dagaallo la isku madho oo noqonaya dhibaatada koowaad ee na haysata maanta, lana odhan karo waa dib u socodnimo, aqoon la'aan, burbur bulsho oo dhan walba ah. haddana waynu sii jecelahay qabyaaladda. fadlan muuqaalkeenu intaas ayuu ku eegi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa idin salaamay idin lahaantiiba tan iyo kulanti dambe.